الله صوصاره الله صوصاره بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال مدن يال يمروين قف ولي بوحنا كسلام يا مجا عي منصب كوفديو وحنا كسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I see a lot of familiar faces. I also see some new faces. This is nice. This is beautiful. It's good to be here. Thank you all. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, thank you all for joining us tonight for our campaign kickoff for the Ohio House of Representatives District 3. It's a true honor to be here as your candidate for a state representative, and I'm humbled to share my vision for our beloved community. I'm not just someone seeking your support, but a proud member of this diverse and vibrant community. My life journey started in Somalia, a place rich in culture and resilience, which has influenced my strong values and given me a sense of community and service. I'm running as a Democrat because I am a Democrat who believes in exclusivity, equality, and the power of coming together to create a positive change. Our community is made up of a tapestry of cultures, backgrounds, experiences, and my commitment is to ensure that each thread is woven into the fabric of our shared future. Ladies and gentlemen, as your next state representative, my focus will be on amplifying the voices that often go unheard. I understand the challenges many of us face. I'm here to be a champion for every resident of our district, whether it's advocating for better education, affordable housing, healthcare for all, sensible gun laws, drug addiction, tackling drug addiction, job growth, or economic opportunities for all. I am dedicated to working tirelessly on your behalf. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I'm not just a candidate. I'm a father, a husband, a son, a brother, a neighbor, a businessman, someone who deeply cares about the well-being of our community. Together, we can build a cohesive community, bridge without understanding our difference, to celebrate our diversity, and to work towards a future where every one of us can thrive. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, let's move forward together in this spirit of unity. My commitment is just not a campaign promise. It's a pledge to serve with integrity, passion, and a genuine desire to make a positive impact on the lives of those I'm privileged to serve. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I'm asking you to visit my website, deeniforohio.com, to learn more about me, to learn about the issues that I hold near and dear, to register to vote, to check on your registration voter status, to volunteer as well. Brothers and sisters, early voting is fast approaching. February 21 is when voting starts. I want you to come out and vote. I'm asking you to come out and vote early. I'm asking you to vote for me. I'm asking you to support me, whether it's financially. I'm sure you can bring your friends, bring as many people as you can. Let's vote starting February 21 and on election day as well. I thank you. God bless.
That being said, mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxaan doonayaa inaan mid iyo labo idinka iraahdo waxa igu kalifay ama sababtaan u taaganahay u go'aansaday inaan isu sharaxo xildhibaanimada degmada saddexaad ee gobolka Ohio. Markaan arkay baahida bulshada ay u qabto matalaad dhab ah taasoo tusaale fiican u noqon karta jiilka halkan ku barbaaray kuwa ku dhashay iyo kuwa ku dhalan doona hadduu alla idmo. Markaan arkay dalalka dhalinyarada Soomaaliyeed isu geystaan ama loo geysto oo sanadba sanadka ka dambaysa sii kordhaysa. Markaan arkay daroogada iyo dhibta ay ku hayso ubadkeenna oo xarga goostay. Markaan arkay numberka dhalinyaradeenna xabsiyadu hoyga u noqday. Markaan arkay dhibaatada bulshadeenna ka haysata guryaha, maxkamadaha, iskuulada, adeega caafimaadka iyo wixii la mid ah. Markaan arkay baahida loo qabo in la dhiso xarun ama center community gu leeyahay oo qalabaysan. Markaan arkay adeegyo badan oo ay dawladda bixiso balse bulshada iyadoo ay ka qatan tahay xaqna u leedahay. Markaan arkay markaan u koorgalay markaan xaqiiqsaday inaanay cidina inoo maqnayn calna inoo qodnayn. Intaas iyo kadib markaan arkay ayaan waxaan go'aansaday inaan isu soo taago xilka xildhibaanimo ee degmada saddexaad ee gobolka Ohio. mudanayaal iyo marwooyin community-geena waxaa jira aafooyin badan ama waxyaalo badan oo wax u dhimi kara ama wax u dhimaya balse aynu ku baraarugsanayn. mid iyo laba haddaan ka iraahdo arrinta dilalka waxaa nasiib darro ah magaaladan Columbus waxaa ku nool dad ku dhawaad 1 milyan oo qof. sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkanba shakhsigii ugu horreeyay ee lagu dilo Columbus waxa uu noqday wiil Soomaaliyeed. sanadkii la soo dhaafay shakhsigii ugu horreeyay ee Columbus lagu dilo noocu doonaba ha ahaadee meeshuu doonaba ka soo jeeday waxa uu ahaa wiil Soomaaliya. waxaa la oranayay xasan dhowr 20 jir buu ahaa. xasan waxaa dilay wiil kale oo Soomaaliyeed. sanadkan qofkii ugu horreysay ee magaaladan lagu dilo 1 milyan oo qof ku nooshahay nasiib darro isagana wuxuu noqday wiil Soomaaliyeed. yaxya wuxuu ahaa dhowr 20 jir. yaxya waxaa dilay qof aan Soomaali ahayn oo jinsiyad kale ah. midaasi waxay keenaysaa yani 1 milyan intaan ka nahay waad dareemi kartaa. waxa sababay inay dhalinteenu isu disho ama la dilo waxaa weeye hubkii oo very accessible. markaan guulaysto hadduu Ilaahay yiraahdo markaan guulaysano aan iraahday hadduu Ilaahay yiraahdo waxyaalaha aan samayn doono ama aan ku tala jirana wax ka qabto waxaa ka mid ah sidii hubkaas loo sharciyeyn lahaa. nasiib darrada ugu waaweyn ee haysata gobolkan ama magaaladan haysata waxaa ka mid ah maanta midkiin hadduu yiraahdo waxaan doonayaa inaan soo gato gaari marka uu tago dealership gaariga lagu gado waxaa la weydiinayaa permit ama driver license si uu gaarigu uu doonayo u test drive gareeyo. ma qof aan permit haysan ama license haysan ba gaari lagu aaminayaa? بالعكس midna uma baahnayd. You don't need a license, you don't need a permit to buy a weapon. inaad permit na yeelato license na yeelato uma baahnayd inaad qori iibsato. waa nasiib darrooyinka haysta gobolkeena ayay ka mid tahay. uma baahnayd inaad samayso background check. dad badanoo waxaa jira maskaxiyan aan fadhin oo istoorada inta taga qori iska soo gadanay hub soo gadanay. marka inaan midaas wax ka bedelno oo hubkaas sida easy-ga lagu heli karo dhalinteena ku heli karto sidaan uga shaqeyn lahayn qofka intaan hubka laga gadin in background check lagu sameeyo, in caafimaadkiisa la baaro, in uu permit leeyahay, in hubkaan qof ka soo bixi kara oo training u haysto at least ugu yaraan uu yahay. nasiib darro midda hadda ma taalo laakiin waan ka shaqeynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo markaan guulaysto. midda kale waxaa caawa laga dhawaajiyey which I'm totally okay with it in ay jirto ama aynu yeelano wax la yiraahdo isla xisaabtan. haddaan Soomaali nahay badanaa ma naqaano qofka meel markaan ku fariisano sax iyo qaladba dadna waa ku taageeraan dadna way ka niyad jabaan.
waxaan doonaynaa inaanu midaas aysan nagu dhicin aniga wixii aan halkaan idinla imaado oo maanta codkiina iyo calafkiina idin weydiisanayo wax aan ahayn wixii aad igula heshiiseen ama community-gayga aan u sheeg haddaan berri la imaado waxa aan doonaya inaad la xisaabtantaan sida dadka qaarkoodna idin gafi maayo haddaad la xisaabtantaan midda kale waxaan rabaa inaan eraya laba ka idhaahdo arrinta ku saabsan opioid crisis walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxa aad moodaa in aanay bulshadeena ku baraarugsanayn opioid crisis ama daroogooyinka keenida ha noqdaan ama aafada kale ee socota ha noqoto waxaa loo baahan yahay oo arrintan in ay ku baraarugaan wadaadada hooyooyinka aabayaasha dhalinyarada يعني Soomaalida waxay ku mamada waxaad qarsato way hay exactly marka inaan arrinkaas aanan dayalsan oo masaajida laga hadlo culimada ay ka hadasho hooyooyinka ay ka hadlaan arrinkaas gobolkan Ohio sanad waliba since 2000kii waxaa ku dhinta 5,000 oo qof ayaa u geeriyooday because of opioid crisis imagine that sanad waliba ugu banaan 5,000 oo qof haddaanay ka badnaynba ayaa u geeriyooda ama u dhinta opioid crisis-ka daawooyinka sida khaldan loo qaadanayo aakhir waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhibaatada kale oo naga haysata guryaha maxaa aan ka samayn doonaa markaan guulaysano hadduu ilaahay yiraahdo waxaan samayn doonaa ama soo jeedin doonaa wax la yiraahdo red cap in aanay dadka iskale guryaha looga jiro rentiga looga jiro in aanay increase garaynin on a monthly basis at least ugu yaraan waa inay 6 bilood qofka notice siiyaan if they want to increase your rent ugu yaraan midda kale city-ga iyo state-ka waxaan kala shaqayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo kambaniyyaasha builderska ah ee guryaha dhisa sidii loo siin lahaa incentives ama arrinna waxa Soomaaliya lagu yiraahdo taxi dhaaf si ay ula xisaab si ay u dhisaan guryo jaban oo la afford gareyn karo mudanayaal iyo marwooyin inaan idin daaliyo mar rabo ku yara dahan filaya muhiimadda ugu weyn waxa ay tahay anigu waxaan ahay nin qabasho leh nin qabsoomaan ahay waalidkaan u qabsoomaa culimadaan u qabsoomi asxaabtaan u qabsoomi hooyooyinkaan u qabsoomi waxaan ballan qaadayaa sharci kasta oo meeshaas assemblyga hor yimaada legislation oo community-gayada ama diintayada ama dhaqankayaga xadgudub ku ah intaanan ka codayn ama u codayn inaan kula soo laaban doono idinka inaan town hall ka samayn doono inaan masaajida tagi doono inaan culimada iskugu yeeri doono inaan idiin soo bandhigi doono wixii aan ka yeeli lahayn nooga haban sharciga wixii aad go'aamisaan ama wadaadadu ku taliso waxaan ballan qaadayaa inaan qaadan doono hadduu ilaahay yiraahdo sida Suldaan Fiqi sheegay dad badan anigu dhal culimaan ah akhradayda duni ku iibsan maayo wax allaala wixii dhaqankayaga diintayada sharaftayada ka soo horjeeda inaan sameeyo ama ku dhaqaaqo anigoo duni nacfi kaga doonaya iga filamaysaan hadduu ilaahay yiraahdo aakhir waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo dhammaantiin intiina ka soo qayb gashay xalfaddan intii soo agaasintay intii soo ajiibtay inta dib ka daawan doonta hadduu ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin brothers and sisters waxaan idinkaga baahannahay waa codkiina iyo calafkiina waxaa jira dad badan oo istiidiyo kale ka yimaaday kuwaas nooma codayn karaan ba waxaa idinkaga baahannahay calafkiina idin dayn mayno hadduu ilaahay yiraahdo intii degmadan degan
waxaan idinkaga baahanahay labadaba intiini aan degmadan deganayna waxaan filayaa inaad garanaysaan dad degmadan degan oo asxaab aad la tihiin oo qaraabo aad la tihiin qof waliba halkaan fadhiyo caawa ugu yaraan 3 qof baan dul saaraynaa inuu keeno hadduu ilaahay yiraahdo doorashadu waxay bilaabanaysaa bisha 22-keeda waxa ay soconaysaa bisha 3-aad 19-keeda oo maalinka ugu dambeysay laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye inaan ka faa'iideysnaa xilligaas la yiraahdo early voting. We have to come out early. We have to make sure that we vote. We have to make sure that we bring our friends. We have to make sure that we bring our families. We have to make sure that we bring our neighbors, each and every one of them. Kana. Waxaan nala fadhiya Natalia Harris. Natalia Harris waxay u sharaxan tahay Franklin County Board of Franklin County Prosecutors Office. Fadlan gabadhaas ha loo codeeyo iyadana. ugu dambeyn waxaa halka iga muuqda hooyooyinkay hooyaday macaan iyo habaryartay oo soo booqatay oo gobolka naga soo booqatay waxaan rabaa inaad daqiiqad u istaagtaan oo u sacbisaan oo magaalada ku soo dhaweysaan habaryartay hooyo waa ku salaam la'aantood maanta meeshaan joogo maan joogi lahayn ninkaan ahay maan ahaan lahayn waxaa weeye hooyooyinka giddigiin oo mahadsantihiin walaashay fartuun beela sida sheegtay waxa ubadka la daara amshuur abooyin fiicanna waa jiraan oo odayaasha si ay soo yareegayaan marka abooyin fiicanna waa jiraan oo badan yihiin laakiin waxa la daala dhaca ubadka waa hooyooyinka waxay naga mudan yihiin xurmad iyo sharaf dawladda walaalayaal mudan yaali marwooyin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad wadiin madcelinaya bahda saxaafadda odayaasha dhaqanka intiina ka soo qayb gashay kun iyo kow jeer mahadsanidin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh